السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودyaasheeda qiimaha qaayalo meel kastood joogtaan kusoo dhawaada shabakada wararka ee Sela 24 waxaan idiin haynaa barnaamij gaar ah oo aan ku eegayno dowladda hoose ee Hargeysa maxay qayladeedu u badatay maxaa maayir mooge dad iyo xukuumad qayb ka mid ah ay u naceen waa maxay dhibaatada kaliya ee jirta ee adigu aad garanaysaa anigu waxaan garanayaa hal khalad oo uu sameeyay maayir mooge iyo golihiisa deegaanku halkaa khaladna waxa weeye wixii la cuni jiray ee la cambusi jiray ayay dadka tuseen 9 biloodna Hargeysa waxay ka dhigeen Hargeysa cusub oo nolol cusub heshay waana sababta keentay in dhaqaalihii ummadda iyo laamiyadii geli jiray caloosha aadamuhu ay Hargeysa galeen waana sababta qaylada keentay haddaba adiga maxay kula tahay waxaad ila daawan doontaan shacabka Hargeysa oo iyagoo aan isoogeyn warbaahin kala duwan u waramaya kana hadlaya waxay indhahooda ku arkeen iyo wixii ka maqnaa iyo weligood inaan helin cid sidan ugu shaqeysa dhanka kalena waxaad arki doontaa golihii deegaanka ee Hargeysa oo laftoodiisa canaananaya iskuna canaananaya maxaa ka khaldan maxaa lagu soo dhex tuuray waa maxay sababta maanta looga qaaday suuqii waahayn waa maxay sababta uu maayir mooge uu cabburka siyaasadeed u dareemayo ee lagu hal looga xidhaya dadka 30 sanadood u diiday Somaliland horumarka ayaa waxay leeyihiin maxaa tooshka noogu ifisay anigu Cabdirasaaq ahaan nolosheeda weli maan arkin muraayadan ka arka mooyaane maayir mooge golaha deegaankana dhammaantood qof aan face to face u aqaana ma jiro laakiin waxaan iska naqaanaa hawada iyo salaamaha su'aashu waxay tahay Hargeysa waxay ka guuraysaa godkay ku jirtay dayax baan u soo baxay mid baan ku darayaa la igu soo rari maayo nimankii lahaa madaxweyne ku aamini mayno ina moogow igu soo rari maysid nimankii lahaa madaxweyne ku aamini mayno madaxweynuhu aniga iga dhashay dadkaygu waxay ka soo jeedaan waar soomaniin xisbiga kulmiye waar soomaniin xisbiga kulmiye haddaba la igu soo rari maayo dad maati kale magaaladan meena wada lahayn hooyadii miskiinada ahayd een cid lahayn aabihii miskiinka ahaa een ubad lahayn een maxaa ku dhadaa carruurtii yaryarayd ee agoonta ahayd ee meelay degaan u baahnida kiriis ka bixin kareen kuwaasi markaa halkay degayaan dhiwaaya markaa halkay degayaan ragga dhulka haysto hadday maqlaysaan oo ilaahay ka xishoonaysaan oo ilaahay ka baqanaysaan iska soo celiya dhulka faraha badan ee haysataan ninkii 5 baloog haysto mid soo celi kii 10 haysto laba soo celi ummadda annaguna intaanu joogno marka wixii ka dambeeya waxa arki doontaan markii ugu horeysay taariikhda in aragtaan kaabado ay ku taalo kaabad cagaara haddaad aragto oo dawladda hoos ku taalo kaanay nin baanu dabada u ruxaynay ninka aanu dabada u ruxaynay waliga iyo nin wax noo dirta iyo nin waxna weydiiya iyo nin wax noo sheega midna maanu arag maanta koow maayir moogow mawla ku adeec cadawgaagiyo caasiguba jabe cadawgaagiyo caasiguba jabe ku ducaynay waadna deeqday waadna diratay wa ku ducaynay daayinha aqbalo aqligaaga iyo caafimaadkana iyo aqligaaga iyo caafimaadka iyo cisigaagana ku hibaynay ku cisaynay oo ku hibaynay caadilha aqbalo ku ducaynay daayinha aqbalo maanu arag madaxweyne aanu arag maayir maanu arag oo madaxweyne maanu arag oo barasaab maanu arag oo nin wax taliya maanu arag oo nin waxna weydiiyo haddaanu shacabka nahay markana laga danaystaan laga dareeraa maalintaas aan ugu dambaysa
madaxtooyadaanu isnidhaahnaa qabto ilaa afka gaadh baa fadhiya markaasaanu ku cararaa meel walba kii aanu dooranay ee cid noogu xigay aanu islahayn kana idin xiga mid wax noo dirta iyo mid waxna weydiiyo iyo mid waxna tara midna maanu arag maanta ka horow ilaahay waa nagala noqon ilaahay waa noo ducaynaa ducada waa aqbal ilaahay u shaka ilaali ilaahay carabka ka ilaali ilaahay kala qaybsanin hal mid baan nahay Cabdikariin Axmed Mooge maayarkayga ninkii amaanaya ama difaacaya iyo kii wax ka sheegaya caayaba midna waxba tari maayo cidda dooratay ma ahaydika Cabdikariin waxa doortay 17 mudane ee golaha deegaanka ka tirsan maalinta uu naga wacdo Cabdikariin maalintaan aragnay inuu gaabis yahay annaga la xisaabtamayna maanta se kuma aragno inuu weecday gaabisna kuma aragno cidii wax ka sheegta waa cid horumarka Hargeysa diidan wax ka sheegtay taana shacabka Hargeysa leeyahay maalintuu wacdo walaalkay waa halka fadhiya annaga kursiga saarnay waanu ka qaadaynaa laakiin ilaahay ma keena ha timaado maalinteeda Cabdikariin mid baan leeyahay mudane maayar dareen baa jira gudaheena in muddo 3 wiiga xildhibaano golaheeni ay ka hadlaan saxaafadda oo ay ku kala fikir duwan yihiin waxbaa jira gudaheena waxaan kaa codsanayaa hawshaas intaanay fogaan inaad gacanta la soo gasho inaad golahaagii aad midayso golahaagoo mid kuwa ayaa waaheenaynu dhisi karnaa Hargeysana aynu dhisi karnaa ugu dambayn waxaan u mahadnaqayaa gudaheeda dawladaha hoose ayaa xuquuq iyo xaq u leh inay qabtaan marka dibal hawlaha guud idinku weydiiyo sababta u qabanayaan wax aan laga codsan oo aan meeyarka ama gudoomiyihii golaha deegaanka ka codsan detaydka u banaan labadii cisho u horeysay maalin bay yimaadeen dib umaanu arag hadday nashqadayn sameynayaan de waxa weeyaan dad private aba nashqadayntii qaar wadaan oo rabaan inay ka iibiyaan oo ay dadka yiraahdaan noocan aan u dhisayna marka dad qaybuun bay ka noqonayaanoo laakiin xuquuqda dastuurka iyo xeerarku waxay siinayaan golaha deegaanka ee Hargeysa wadadii cusbeed dhawaan dawladda hoose ay hirgelisay waxyaabaha wadadan ku cusbaa waxa kamid ah drainage ama biyo mareen in loo sameeyo halkan ayay biyuhu ku dhacayaan drainage-kaas ama wada mareenkaas ayay raacayaan halkan markii hore doox bay ahayd laakiin ilaahay mahadii hadda drainage bay yihiin ama biyo mareenkaas ay biyuhu ku wada dhacayaan dheer yahay ilaa halkaas dusha ayuu ka samaysan yahay drainage-kaasi halkaas ay biyuhu ku dhacayaan inaan kale dadka ka shaqeynayo kamid yahay bal ka waran adigu waayii horena waa joogtay imikana waa joogtay bal ka waran isbedelka waa arkaysaa dadaan magaalada waxa la yidhi waa su'aal daaweynay dalka yaa iskale dalka waxa iskale ninka daacadda waa marka ninka daacadda waa inka drainage-ka uu sameeyo waxay ugu dambeysay dawladda Ingiriiska iyo tii Soomaaliland sodonkaas inay jirto xanuun samaysan waxaana baynu qabsan weynu fadhiyay ina mooga waxaan leenahay aad baad mahadsantahay xilka ka sareeyna waad u qalantaa anagu markaan muwaadin ahaan u hadlo kii hore iyo kan uma kala jecliyo wada shakhsiyadeed laakiin soo qabadka markaan aga cirkiyo dhulka isku yimid waad arkaysaa halkan inta kabooda halkaas yaa nagaga gooqooday iyo ceelashiina ku dhici jiray maanta waa la soo dulmarayaa biyo waa kuwa halkaa maraya 3 drainage baa doon loo dhigay waa wada si casri loo sameeyay marka ina mooga waa nin waddanka u daacada waddankana ninkii u daacad u baale ee dhiigga u aad baad mahadsantahay عذاوين بأدونك بقوق عذاب ديار شيء رحمة دادا لو قلت قبيدو عنداونا نور كئيبو وجهك صيفاي أيان تقيامي وتقولي رسول وسؤال داويني دلك يا إسكالي